fariinteedu waxaa u dirayaa ra'iisul wasaaraha waxaa leeyahay ra'iisul wasaare rajada dhalinyarada Soomaaliyeed maanta adeeg kugu xiran tahay hanahan jabinin wali rajo waxaa ka qabnaa inaa cadaalad u heelisid nimankii kiiskan ku lugta lahaa oo lagu tuhunsanaa ayaad shalay u dirto oo tiri soo baara maanta haddana 48 saacada insiina inaan dhaadina ma qabato saas oo ay tahay wali waxaa ka rajaynaa ra'iisul wasaare inaa cadaalad u heelisid haddii maanta cadaalad u heelin weysid ummadda Soomaaliyeed oo dhan gurigooda ay dulmiga ugu tagayaan dadka la dulmay haddii maanta loo cadaalad fali waayeen waxay ku qasbanaan doonaan inay gacmahooda cadaalad ku raadsadaan halkan waxaa u soo istaagnay inaan dareenkeena u muujino dulmiga lagula kacay walaasheen Ikraan Tahliil waxaan rabaa halkan inaan fariin ugu diro ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble mudane ra'iisul wasaare Ikraan kiiskeeda baaritaan ma waxa uu u baahan yahay waxay tahay ka run sheegid in laga run sheego kiiska Ikraan waa ognahay Ikraan qof shacab ma aysan ahayn halka laga afduubtay la og yahay qof walba aqli leh waa dareemi karaa oo aan qof shacab iska daayay xitaa qof mas'uul ah oo san gali karin gaariga lagu qaaday la yaqaana cidda qaaday la yaqaana halka la geeyay waa la og yahay kiiska Ikraan waxa uu u baahan yahay waxay tahay in laga run sheego cid walba oo lugta u la galo in laga run sheego mudane ra'iisul wasaare hadalka kugu dheereemayno 48 saacadood qabsatay nus saacadii kala bar way soo dhamaatay kala barka kala waxa ka soo yeeri doona hadalkadii ka soo yeeri doona waa kaliya waxaan ka dhur sugayno mudane ra'iisul wasaare dibkaad maanta dhowrataa dhashaadu la yeelaa Ikraan cadaalad ay u baahan tahay maanta waxaan halkaan iskugu nimaanay oo soo binaan baxnay waxay tahay Ikraan inaan cadaalad u raadino taasoo in badan laga hadlay oo wax badan soo socotay muddo 2 bilood ah waxaan sugaynay inaan cadaalad helno oo Ikraan ay cadaalad hesho walaasheen Ikraan sidaan wada ognahay waa gabar Soomaaliyeed waxay u baahan tahay in cadaalad rasmi ay hesho markii la fiiriyo dhalinyarada 75% dhalinyaro waaye haddii dhalinyaradii maanta tacadi oo haddii lagu la kaco waxa waa dhibkeeda ay leedahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaan ka codsanaynaa in gabadhaas cadaaladeeda si rasmi ah lagu run sheego insha Allah ta'ala waana rajaynaynaa in fariinteena ay gaari doonto ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo dhowr jeer ba fariimo badan ah bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo taariikhdu tahay 5 bisha 9 2021 annagoo ah dhalinyarada iyo aqoonyahanka gobolka Banaadir ama dhalinyarada iyo aqoonyahanka Soomaaliyeed ee magaaladan ku nool waxaan halkan oo ah kilomitir 4 isku soo baxnay inaan dareenkeena ku muujino dareenkeena oo na soo saarana uu yahay gabadhii Ikraan Tahliil Faarax ee dawladda federaalka gaar ahaan hay'adaha amniga ama Radio Muqdisho ay ku sheegeen in la dilay maanta maalin ka xanuun badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed soo mari lahayd ma jirto qof dhalinyaro ah oo wax bartay oo qiimo leh oo inta maaragtay dhintay aan xaqiiqadaba lagu sheegaynin sababta uu dhintay iyo waxa uu dhintay anigu hadalka kuma dheeraanayo waxaan soo qaadanayaa 4 qaybood 4taas qaybood ayaanan maaragtay ku gaabinaya midda koobaad waxa waaye waddanku dawladu leeyahay ra'iisul wasaaraha maanta sharciyad haysta ra'iisul wasaare waxaan ku sheegaynaa gabadhaas xaqeeda inaad meel soo saarto oo dadka ay lugta gelinaysa arinteeda aad tilaabo sharciga waafaqsan ka qaado oo maxkamadda horgeyso oo aad samayso wixii nin madaxa oo Soomaaliya laga fili jiray inaad samayso ayaan ka doonaynaa aan u cadaalad raadino u cadaalad dalabno walaasheen Ikraan Tahliil Cabdi Ikraan Tahliil Faarax ayaan u rabno inaan cadaalad hesho waxa aan rabno inaan cadaaladda ka dalbayno oo go'aankaas uu ku xiray maanta gacantiisa ku jirtay waxa weeye ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble intaanu bulshada waxay isugu soo baxday in ay Ikraan cadaalad hesho cadaaladaas iyo dadkan qanaacadoodan waxay noqon kartaa koow taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin oo aad xilka ka qaado xilka marka ka qaado kadib inaad maxkamadayso oo aad maxkamad soo istaagto cadaaladana soo istaagto dhaqankii yuhuud ayaa wuxuu ahaa dadka ugu karaamada badan markay dambi galaan in la sii daayo oo faraha laga qaado anagu dad islaam ah nahay waxa waajib ah ninkeena nugu qiimaha badan nugu sharafta iyo karaamada badan iyo ninkeena nugu hooseeya cadaalad waa u sameeyeen waxaan rabnaa qofkii dambi gala jariima la galay dambigaas ninkeen nin kamida dadka maaragtay nugu karaamada basirdoonka hay'adaha institutionka Soomaaliya mid kamida taliye ka ayaa dambigaas kiiskaas lagu eedeynaya waxaan codsanaynaa kiiskaas inuusan maaragtay uusan cadaaladda si sax loo horsaajiyo waxa halkaas kugu soo baxnay annagoo ah dhalinyaro Soomaaliyeed isugu jirnay Ikraan eheladeeda iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo kale inay hesho walaasheen cadaalad lagu laayahay 3 bilood lagu laayahay sirdoonka Soomaaliya waxa ra'iisul wasaaraha mar labaad iyo mar saddexaad ka codsanaynaa
in ay ikraan u cadaalad falo ee ikraan hesho cadaalad because waxa ikraan ku dhacay dhalinyaro Soomaaliyeed aan ahnay annagana wayna sugaysaa usha walaalka ku dhacdo gumudkeeda adna meel bay ku taalaa geerida galbeed ka dhacda maxaa koonfur looga sheegay waxaan u baahanahay inay gabadheena cadaalad hesho maanta waxaa halkan shucuurtaan ugu muujinaynaa oo ugu soo baxnay kiiska ikraan tahliil faarax ee sii dhaafaya muddo 2 bil ka badan waxaa u baahanahay ra'iisul wasaare cadaalad inay hesho ikraan waa gabar Soomaaliyeed oo wax baratay oo dhalinyaro ah oo bulshada wax badan u tari lahayd ikraan haddaysan maanta cadaalad helin dhalinyarada Soomaaliyeed ee mustaqbalka leh intaas ayagana sidoo wadada ikraan martay maraysaa ra'iisul wasaare waxa u baahanahay ikraan inay cadaalad hesho kiiskeedu waa inaa si dhab uga dhabeeysaa ma ahan inaa dhaado dabagalaal rabaa iyo baaritaan 2 bilood kadib baaritaan wuxuu taraay ma lahan waxa u baahanahay ikraan tahliil inay cadaalad hesho waxa u baahanahay ikraan tahliil inay cadaalad hesho waxaan soo baxnay maanta shucuurtaan u muujinaynaa dibka ikraan tahliil soo gaaray waxa u baahanahay raq iyo ruuxeed ikraan tahliil in banaanka la keeno